ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا إله نقدركوا إله الرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلب قوض وحوكدقا أو كحصلا ذكر إلهي ألا بذكر الله ألا وبمعنى ألا بمعنى اعلموا وتنبهوا وردنا ككعة توصوي ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي ذكر يسي قلوب تكدكتا ذكر إلهي هداد دي سمحا دعايا وحا دعايا ستريس ديبريشن جروين اسكبوق جن إنسي وسواس وحان لو جوغي قفكي وحاadun arki uun isaga oo bac kaniini ah wada bac kalo kaniini ana xagan ku wada oo kan waa maxay kan waan isku yaraha buuqay oo stresska la igu soo qoray ilaahay caafiyo dadka xanuunsan stresska loo soo qoray kana depressionka loo soo qoray intaadan wax cunin kan qaado intaadan seexanin kan qaado markaad biyo cabta kan qaado markaad ma aratay si seexanaysa kan qaado marka hore lagu kari waayay adoo taagan iyo adoo fadhiyo adoo jiifa inta ilaahay xus wallahi inuusan stress imanaynin wallahi inuusan isku buuq imanaynin wallahi inuusan dib kale imanaynin isha iyo sixirka iyo jinka waa laga yaabaa qofka muuminka inay ku dhacdo allah naga koriye laakiin qofka muuminka ee rabbigii xusaya jirkiisu ilaahay subhanahu wa ta'ala u fiyoobeynaya qalbiga haduu dagana jirka intiisa kale oo dhan hadda dumar baa tihiin inkastoo kaamara la duubayo laakiin cidda hadalka uu gaaraha ogaado hadalkan hadal dumarka loogu tala galay weey gabdhuhu waxay aad u jecel yihiin inay ilmo dhalaan oo tarmaan inkastoo gabdhaha zabanka joogo aad looga yaabay oo umaleynay in gaala lagu dayanayo oo ay kuleeyihiin anigu inaan wax dhaldhalaba ma raba hadaan dhalana mid iyo laba oo seed walaalay sida u leedahay oo seed adeer sida u leedahay nabiga yiri dhalmada hal la badiyo hal la tarmo warshadii adduunka ugu qaalisanayd baatihiin ibn aadam wuxuu soo saarana ibn aad ilaahi subhanahu wa ta'ala nicmooyinkiisa ibn aadam ba ugu qaalisan ee jirkaadan inta uu tarmaya hadii aad tiraahdo waxbaan ka ilaalin maxaad siisay muxuu ku tarayaa gabdhaha waxa la ogaaday ama ugxantoodu ay yar tahay ama ma aratay inay uur yeeshaan ay adag tahay waxyaabaha keena waxyaabahaas waxa kamid ah walwalka iyo buuqa keena waxa lagu ogaaday gabdha gaalaha lagu tijaabiyay marka gabadhu intay rabbigeed ku kalsoon tahay way tarmaysaa hadii mid ilaahay u qadaray anu hadda qadarka ilaahay ka hadli maayo laakiin asbaabti baan idin sheegay asbaabtuna qadarkay kamid tahay gabdhaha waxay sameeyeen markii la sheego la yiri waxba dhali maysid gabdha gaala ma dhalays baa tahay ee shib iska dheh ayay intay Afrika iyo meelaha yimaadeen bay caruur adabti ku sameeyeen soo caruur bay soo qaateen caruurta markay soo qaateen caruurtii bay ku farxeen markay xoogay farxeen oo gabar caruur la ay noqotay oo walwalkii uu ka baay markii bay uur yeelatay jalla jalaaluhu marka qalbigaadu haduu degan yahay sakiina iyo xasilooni ay ku jirto waxba waayi maysid